yangu asenesi magire mtuzeya sana nena finira chechemekwe yangu asenesi magire mtuzeya sana nena finira chechemekwe yangu asenesi magire mtuzeya sana nena finira chechemekwe Bageri. السلام عليكم صاحبيال maanta waa maalin cusub muuqaal cusub iyo magaalo cusub halkan aan ku suganahay waa magaalada Jigjiga waxa weeyaan halkan aan joogo waa fooqii ugu horeeyay ee magaalada Jigjiga laga aasaaso waxa la yiraahdaa fooq dheere maqla farxadoona la yartu adame fooqan waxa weeyaan dadkii barigii hore markay warqadaha isku qorayaan jacaylada waxay oran jireen salaan ka soo go'day kashkiya laabta ka dheer fooq dheere ka balaaran ka macaan xalwada lagu iibiyo xalwad baa lagu iibin jiray baa leeyahay ka balaaran ninka iibinaya markaa nin buuranna uu iibin jiray darooba madool ka guud lagu dhowriyay istaahil madheemamba awrtani xaabay sidaan xaabadan magaalada lagu shitaa waliba Itoobiyaanka xoog u isticmaala waxa Soomaalidu shoolada iyo way isticmaalaan iyagu waa yara horumarsay tan arkaynay way la qabsadeen waxa ka talaaban zibraaga ka talaaban meel dad ka talaaban ay ka talaaban halaamida traafiga celiya iyagana mar bal celiya baabuurta mar bal celiya reerka way taagan kordhi marna iyaga mar baabuurta marta meelaha ka imanayeen magaalada taaniga tagina ma garad waxaan la geenayaa magaalada koonaheeda galabta awrtan xaabadu iyagoo raashin iyo sonkor wada iyo dhar ayna dhaafi doonaan imika xaabadu magaalada waxbay galabtan iyagoo raashin wada galabta shanta marka way qabatimeenoo waa awr bini aadam weeyaan way soo qadinayaan way soo qaxweynayaan galabta way noqonayaan xaabadu ayaa shita xaabadu waxa shita waxa laga shaqaa qablaha shanaad iyo qablaha afraad inta badan hoteelada cuntada ayaa u shidata iyo qodyaan amxarada dadkeen dhuxusha shita awr dhuxusha laakiin kuwa waxa shita qodyaanka Itoobiyaanka aad iyo aad ma santeeda وبحرر له ميدبين علي يهوغا يكتو وجهي كدلا وبحرر له ميدبين علي يهوغا يكتو وجهي كدلا مرتي اسكدان دولها هذا ديمو تيدا غنداي سلا ديبني مرتي اسكدان دولها هذا ديمو تيدا غنداي سلا لا دشنو دويه هليالوها اللي تدخلي شهاي اللي يالوها اللي تحرير وقاس اللي يالوها اللي دومر لما دقنو ولا دولوليا halkan aan soo gaaray waa buurta Karamardha saaxiibayaal meeshan runtii waa meel aad u qurux badan hal buuro kaliyana maaha ee waa buuro aad u tiro badan oo halkan wax way buurtan ay kulmiso kor waa u sii kici kari weynay wax way halkan sare waa la sii kori karayaa oo aad bay u dheertay laakiin wax weeyaan meeshan ay hadal karimayso buurtan waxa la yiraahdaa waxay 9,000 oo above ka sareysa sea levelka ayaa la yiraahdaa wax weeyaan meeshan runtii waxay ka mid tahay meelaha ugu quruxda badan ee aan tagnay
jigjigana aad iyo aad iyo aad ayay caan ugu tahay buurtan waayo waxa weeyaan dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray buurtan ayuu in fara badan ka dhacay baa leeyahay waxa weeyaan halkan waxaad ka arkaysaa magaaladii jigjiga oo dhan waxa weey fiyuga halkaas ka arkaysaa halkan waa yara khat bismillaahir rahmaanir rahiim khatar sidoo kale waxa weeyaan arliga dhan waa beero lo'diyaan halka hoose ku soo dhaafinay ayaa arligan oo dhan daaqda waxa weeyaan meeshani malaha gu iyo jiilaal iyo waxa soo dhan waqti kasta sidan bay u beeratahay oo camiran tahay oo qurux badan tahay waqtigan aan ku soo beeganay waa 5 iyo barkii galabnimo xagga saraan u sii lugeynaa oo aanu ku caynaa nala socda arkiyo dhaagay maqla farxad doolo la yoo yartuwa axbalsan magaalada dhexdeeda isaga bariyay isaga lugeynay waxaan ka aadan 19 waxaan ku ogaa magaalada Hargeysa jigjiga kuma lugeyn waxa weey nafteena qaraxa bay qabojeenay kale la iga soo horeeyay waxa weey waxaan wadada iga horeeya marka laynkan yara jiiraya la soo كوحنا على بسكوت كون وحوي سجى قل كي سوالف أنا عمرك كوبات كانت قبل عبسة وكان قلت عليه هذا إنتي وحبيبي كاس قبل عبسة آيس كريم كانت عنسة مع القل كانت عنسة حتى تشغل عنسة ده أبو قاعد عنسة midabdeen alay ee hawga yagtoo wajaheel ku dhalaa صاحب يال مقالة أنكو سجنا هايستيل ومقالة تشجيجا مقالة تشجيجا تاريخ آدي بلارن أيه لا ذهي مقالة وحلا عصاصي سن تاريخ ذا كم مقالني كون سجال بقول يسديتنكي مقالة وحيسكو حري كرتي لبدي مقالة قديم مقاهي اللي شري سيلع يهرر وحويان كان عصتدي لبدا مقالة وحكي كلا يبسن شري أيه مقالة سومري شري كان عصتده مركي أورتودا يجنع السجود كسوق حيان مقالة سيلع هل كان بكل سنشري سببتها وحكي لي عيال آدي وين وهي عام كواحد هل كان مركي يكون نستان أي استحلان أي سفر كود السيو ذي كذا تدو كله مقالة نشكشجا وحي مقالة نقطي وحي يود حي يكون سجال بقول يستيتكي إلى يكون سجال بقول يسجاشنكي مقالة وحي نقطي مقالة جناعسيات وحي لكين كذا دركا صنكرتا يسوبجا اللي دومر لما دينو ولا دولوليا اللي تشينوغو بدوية اللي تدخليش كيسر aad baad u mahadsantahay ku soo dhaw magaalada Jigjiga maanta wixii Ilaahay nagu simay oo aan joognaa dhulkii aan 22 sano ama 20 sano ka hor arigaano yar aan ku raacayay gurigiina waxaan 2 kiiloomitir dhannayn ayuu xaga ka xiga aan ku noolahay halkan aan joognay mid ku xidhaada dooxada daymacad ee magaalada Jigjiga la yiraahdo halkan waxa ku kulma dooxan daymacad oo ka yimaada qurwada togi loodhanay dhinaca kalena ee birbidis halkan ay ku kulmaan halkan waxa ka anba qaada oo ka dhaqaaqa toga la yiraahdo toga jarar meeshuu ka bilaabmay ayaynu taaganahay magaalada Jigjiga dhinacaygan midig hadda waxa 500 mitir iga xiga oo kuliyada caafimaadka ee magaalada Jigjiga ceelkan waxa yiraahdaa ceelka cadaanka ee magaalada Jigjiga la yiraahdaa hadda uu aasmay guryahan oo dhaadheer ayaanu naga yar ariga ku raacinay oo aan galeynay hadda carrada aastay ceelkuna waxa gooyay toga faafkiisa iyo jarka gooyay ilaa 3 ceel oo 2 ceel oo kale xaqan hadda inaga xigo kan 3 ku yahay intaba waxay la xumaadeen oo la fariisteen oo loogu guuray waa biyaha meeshan maraya culayskooda iyo waraarka ay jeexayaan weeyaan meeshan waa meesha magaalada Jigjiga ugu quruxda badan weeyaan waa meel u baahan in daryeel lagu sameeyo maanta waa xilli ay wax kasta oo meeshan yaala u isbedelay weeyaan hadda waxa iga dambaysa xaafadaas iga dambaysa fiyuga iga dambeeya waxa weey waa xaafada waxa yaashay 15aad marka laga tago xabaalaha shaqaale guure oo ay ku aasan yihiin garaadadii iyo suldaamadii iyo culimadii deegaanku shaqaale guure ee Allah u naxariistay garaad xirsi faarax wiilwal garaadadii ka dambeeyay suldaamadii magaalada wixii oo dhan iyadu xagga ku aasan yihiin xabaalihii taariikhiga yihiin haddana xaafadani ilaa sayridu ku taalo waxay xaafada 15aad ee magaalada Jigjiga
halkan aan joogno xaafadda fartoonaad kaliya waxa u dhaxeeya 100 mitir ee cawska u dhaxeeya 5 sano ka hor miina jirin xaafadani totally 5 sano ka hor xaafadani saa ay tahay ku miina jirin 4 sano hadda isbedel ku jiro ay xaafadani laga soo bilaabo jidka 30 ee hadda laamida laga dhigay ilaa iyo halkaas 4 sano ay samaysantay marka xaqana waxa iga jira xarunta caafimaadka kuliyada caafimaadka halka waxa inooga muuqda gambiska inoo muuqda waxa xafiiska madaxweynaha deegaanka weeyaan taasoo kale fiyuga kale isagana arkayna waxa weeyaan waa xafiiska baarlamaanka xarunta baarlamaanka deegaanka hadda la dhisay weeyaan meeshani waa meel nimcaysan weeyaan waa meel taariikhdii magaalada Jigjiga unkankii magaaladu uu ku idil yahay weeyaan anagana farxad bayno tahay inaan maanta soo gaadhno waxoogaa marka laga yimaado inay u baahan tahay in dad yeelo oo ama silig lagu xidho oo waxa looga faa'iideysto khataraha ku soo socdana ay kamid tahay togan soo socda ku soo faafaya meeshani waxa weeye Jigjiga markii yiraahdo meesha kaliya ee maanta lagu xasuusan karo ay ka soo bixi karto halka weeyaan qeeska sarnaad maasan yahay هوجا يتوه جحيل كلها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. نحن في مطعم قصر السلطان في دولة أثيوبيا مديرية شكشكا. عندنا جميع الوجبات اليمنية، عندنا من الخبز وعندنا من الفتة وعندنا من البيض والشكشوكة واللحم الصغار والمندي المجمر وجميع الوجبات اليمنية في دولة أثيوبيا مديرية شكشكا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.